waxaa maalin kastana lagu khasbi jiray in aan nadiifino dhiigga maxaabiista la laayay Mazen al-Hamada iyo xabsigii seednaaye ee waddanka Suuriya. Waxay qisadiisu qabsatay dunida oo idil. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa qisada xanuunka badan ee Mazen. Ka hor intaanan muuqaalkeena u gudi gelin, haddaad halkani ku cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe dheh. Haddaad horey nala joogtayna muuqaalka like saar si uu dad badan u gaaro. Mazen al-Hamada wuxuu 1977 ku dhashay magaalada Deir ez-Zor oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn waddanka Suuriya. Waxay noloshiisu iska ahayd mid rajadu ay wehel u tahay oo u nool marba xaalka Suuriya ay ku jirto ka qayb ahaanshaheeda. Sanadkii 2011 wakhtigii gugii Carabta oo dalalka Carbeed badankoodu ay qabsadeen mawjada isbedel doon ah kuwaas oo xilalka ka tuuray madaxdii wadamo ay ka mid yihiin Tunuusiya, Masar, Liibiya iyo Yemen ayaa shacabka Suuriya iyaguna u istaagay inay ka qayb noqdaan mudaaharaadyadaas xorriyad doonka ah. Mazen wuxuu ka mid ahaa dadkii u horeeyey ee qaata boorarka mudaharaadkaas. Wuxuu ololihiisa ka bilaabay magaaladii uu ku dhashay ee Deir ez-Zor. Baaqyadiisu waxaa ka mid ahaa inuu aaminsan yahay in xuquuqda qofka muwaadinka Suuriyaanka ah ay tahay xaq uusan qofna diidi karin si kasta uu iskaga indhatiro. Laakiin xukunkii Asad oo diidsanaa wixii madaxdii saaxiibadii ahaa helay inay qabsadaan ayaa baaqyadiisa ku tilmaamay inay yihiin khiyaano qaran. Bidbaxyadii nabadda ahaa ee dalka ka bilaabmay waxaa lagu soo afjaray rasaas, xabsiyo iyo dad si qarsoodi ah habeen madow loola baxay iyagoo aan la ogeyn geeri iyo nolol meel ay ku dambeeyaan. Mazen wuxuu ka mid noqday dadkii la xiray waxaana lagu tuuray mid ka mid ah meelaha ugu cabsida badan ee aadani kaga sugnaado Suuriya. Waa xabsigii Seednaaya oo lagu magacaabay inuu yahay kawaankii gowraca. Waa meel derbiyada laftoodu ay ka muuqato inay markhaati ka noqdaan falal ka baxsan bani'aadamnimada. Sida uu sheegay Mazen waxa uu la kulmay jirdil dhaafsisan wax maskaxda bini'aadamku qiyaasi karin. Waxaa la isugu daray cunto yari, garaacid joogta ah iyo inuu goobjoog ka noqdo maxaabiista kale oo dhimanayo silac iyo saxriir. Mazen wuxuu xabsiga Seednaayo u bixiyey warshadii dhimashada. Waxa uu sheegay in si maalinle ah loogu khasbi jiray inay nadiifiyaan dhiigga maxaabiista la laayay maalintaas. 2 sano oo silic ah kadib 2013 bishii Sebtembar ayaa maxkamad argagixiso la dagaalan ah Mazen u fidisay cafis. Sidaasna xabsiga Seednaayo looga sii daayay, laakiin jirkiisa uun baa xabsiga ka baxay. Waxa ay maskaxdiisu la noolayd culays iyo walwal uu u qabo kuwa xabsiga kaga dambeeyey. Wuxuu u tahriibay Yurub, gaar ahaan waddanka Netherland oo uu magangeliye ka raadsaday, halkaas oo uu fursad ugu helay inuu kaga waramo tacdiyadii nooc walba lahaa ee rajiimkii Asad ugu geystay gudaha Suuriya. Wuxuu u sheegay caalamka runta nolosha ka jirto Seednaaya, meel ay ku qarsoon tahay naxdinta iyo uurku taalada ugu badan ee Suuriya. Wuxuu ku celceliyey in xukunka Asad uu ku nool yahay keliya inuu quuto cabsida shacabkiisa. Hadalladiisu waxay taabteen quluub badan. Mazen wuxuu noqday astaan u taagan iska caabinta iyo cadaalad doonka reer Suuriya. Wuxuu iftiimiyey dhibaatooyin badan oo dunidu doorbidi lahayd inay iska indhatirto. 7 sano uu dibad joog ahaa, Mazen qalbigiisu wuxuu mar kasta jiray Suuriya. Ugu dambeyn 2020 ayuu ku laabtay Dimashq isagoo rajo ka qabay cafis uu Bishaarul Asad u fidiyey. Balse markii uu garoonka diyaaradaha ka degayba wuxuu la kulmay khiyaanadii ay ugu digeen dadkii u dhawaa. Muddo 4 sano ah cidna ma ogeyn meel jaan iyo cirib uu dhigay ilaa laga soo gaaro Talaadadii 10 Diseembar ee sanadkan, kadib markii xoog mucaaradku ay soo afjareen xukunkii Bishaarul Asad oo ay la wareegeen Dimashq. Waxa ay meedkiisu ay ka muuqato in jirdil badan oo uu dhintay laga helay qayb ka mid ah isla xabsigii uu ugu magac daray warshadii dhimashada. 12 Diseembar ee sanadkan ayaa aas qaran oo kumanaan Suuriyaan ka soo qayb galeen loogu sameeyey qabuuraha Dimashq. Mazen cadaalad daradii uu dhalinyarnimadiisa ka dhiidhigay ayaa aakhirkii soo afjartay noloshiisa. Waxaa ka mid ahaa hadalladiisii caan baxay: haddii qisas sheegisteedu ay badbaadinayso hal qof, waxay mudan tahay in aan la sheelin. Mazen Hamada sheekadiisu waa baaq xaqsoor. Waxa ay xusuusin u tahay qiimaha xorriyadda iyo adkaysigu ay tahay in loo yeesho doonista cadaaladda.